nebiga sallallahu calayhi wasallam markii uu gaaray 25 sano ayuu guursaday haweeney la yiraahdo Khadiija bintu Khuwaylid oo ahayd haweeney aad u sharaf badan garoob ah maal badan lahayd jirtayna 40 sano waxayna u dhashay 6 caruur ah nebiga markii uu gaaray 40 sano ayaa la diray oo laga dhigay rasuul waxaana la amray inuu dadka ugu yeero tawxiidka oo ah inay ilaahay caabudaan kaligiis markii 12 sano u yeeray dadkii deganaa Maka iyo nawaaxigeeda ma aysan rumayn dad badan ayaa la amray rasuulka inuu u haajiro Madiina isaga iyo asxaabtii rumaysayba waxayna tageen Madiinatul Munawwara si fiicanna ayaa loogu soo dhaweeyay nebiga markii uu soo galay Madiina dadku waxay u safteen jidka dhinacyadiisa iyagoo soo dhaweynayo qaadaya heeso iyo sacab iyo durbaan jacayl ay u qabaan awgiis nebiga markii uu soo galay Madiina wuxuuna saarnaa harrakub ah wuxuuna ku degay guriga Abu Ayyub al-Ansari nebiga wuxuu walaalo ka dhigtay asxaabtii la soo hijrootay iyo asxaabtii Madiina degneed oo la kala oran jiray muhaajiriin iyo ansaari halkaas ayuu ka dhisay dawladii islaamka nebiga wuxuu ku dhintay Madiina laguna duway isagoo jira 63 sano wuxuuna noogu tagay qur'aan weyn oo uusan imaan baadil hortiisa iyo gadaashiisa waxaana soo dejiyay Allah xigmada ee la mahadiyo